Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan ayaa ka hor yimid kala diristii uu guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee Golaha Shacabka ku sameeyay guddiga Maaliyadda iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda. war qoraal oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha ayaa lagu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo dhameystiraan xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii 2017 iyo miisaaniyadda sanadka 2019 ka hor inta aysan dhammaan sanadkan aynu ku guda jirno ee 2018. Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan ayaa sidoo kale faray xukuumadda federaalka Soomaaliya in ay u hoggaansato shaqada guddiga Golaha Shacabka ee korjoogteynta iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda. warkan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan oo ka koobnaa qodobo dhowr ah ayaa sidoo kale lagu faray xukuumadda federaalka Soomaaliya in ay ilaaliso madaxbannaanida Golaha Shacabka. waxaa muuqata in guddoomiyaha uu la dhacsan yahay warbixintii ay soo saareen guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka taasi oo hore u abuurtay kala dirista guddigaasi. mustafa hassan abdi wararka hiiraan online magaalada caasimadda ee Muqdisho.